ka riday horta markii hore dagaalkan anigu nugan garxajisnahay oo ubkan xitaa waxa loo soo diyaarsaday anaga la noo soo diyaarsaday si kadiisan buu dee maxay ahaydey SCC ugu dhacay ama dee maaragtay dhulbahante ugu dhacay dagaalku laakiin dagaalkan anaga lanoo soo diyaarsaday si anaga lanoo xasuuqo runtii haddii dagaalkaasi anaga nagu dhici lahaana dee waxa loo arki lahaa uun dhammaantiina waxaad u arki lahaydeen uun dee dagaal ay idoorkii ama isaaqa waxaad taqaantiin ay islaynayaan dhexdooda gurmadna maanu helneen naxariisna maanu helneen waa runtee wallaahi nacam cidna nooma soo gurmateen sidaa imika maaragta looga naxayo maxay ahayd SCC dhulbahante looga naxayo oo loo arko iyaga dee qabiilka loo daarood ahaan lagu soo duulayo maxay ahayd anagana nooguma soo gurmadeen tii 1994ka ku dhacday nagu dhacdayba dee cidba nooma soo gurman aanay ahayn dee dhulbahante aanan ahayn oo nasoo siin jiray ma garanaysaa dee hubka nasoo siin jiray hubka nagu caawiyey markaas waxa weeye intaas ma doonaya walaal inaan maxay ahaydey aan ii sheego dee maxay ahaydey horta anagu ma ogolanayna marnaba anagoo garxajisoo nool oo dee 27 sannadoodna aanan wax dhaqaala ah aanan meesha naga soo gelin ama aanan xaquuq ku lahayn maxay ahaydey ina shidaalkayga horteeda laga soo saarto oo laga macaasho marka waxaan dee anagu baraarujinaynaa soomaalida shidaalkani waxa weeyaan dhul soomaaliyeed buu ku yaalaa anagu dad soomaaliyeed baanu nahay si kastoo ay iskugu dayeen muuse iyo ciidankiisu inay soomaali naga saaraan anagu soomaalinimadeedanu jecelnahay weligeyna anigu soomaalinimada ka fog kuma fikirin wax daarood la yidhaahdana weligey colaad caynkaas maan hayn waan maqli jiray beriga hore SNMT daarood iyo waxbaa islaynaya laakiin imika waxaan fahmay inuu wixii baa ahaaba been oo wax lagu guuraya ay ahayd sheeko la iska sameeyey oo la doonayo in garxajis lagu baabi'iyo ilaha dhaqaalaha hadday noqoto si kastaba hadday noqoto adduunka lanaga xidho markii dambena anaga xera meel yar baa lanagu xidhay oo dee lanagu qabsaday sida aananu dadka maaragta soomaalida waxba aananu la wadaagin waxa la qaranka ahaa calan aananu garanayn xitaa in yaroo line yaroo blue kuma jiro waxa weeyaan waa casaan waxaananu garanayn waa anu calanka Iiraan baan bixiyay ma garatay marka waxa weeyaan anagu soomaalinimadan doonaynaa soomaalinimadan jecelnay dadkeygana ma jecelnin inaan ka go'no taas haddii si kastaba ay ahaato dagaal lagu soo qaado dee sidaa SCC aad uga naxsantihiin markaas anagana waa inaad nooga naxdaan walaalahayga soomaalida dadtiin maxay ahayd iyagunbaa markii hore lahaan u Soomaali ma nihin xitaa magaca Soomaaliga waan iska bedelaynaa qaar baa yiri xitaa xabashi baan wax far yahuudi u eeg baan qoraynaa imikana iyagunbaa irir Soomaali marka dee anagu mar garanayna gooray dadkan waalan yihiin iyo gooray dadkan fayow yihiin ma garateen laakiin aad anigu waxaan u baraarujiyaan ka hadlaa dadka dhalinyaradeeda oo raahdaa war waxani wax maaragtay jira maaha 32 sanadood ba hadday meeshan jirto oo qaran ka jiro aan noolaan lahayd oo wax qabsanayd oo horumar aad samayn lahayd marka intaas aan ku gubooyay waad bahadsantihiin aad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waa maadsantahay waa waaqac waxaad ka hadlaysoo dhan runtii saray waa kusoo follow backgrade runtii walaal waa dareenkaasi ugu jira arrinta shidaalka walaalaad weydiisay runtii barnaamijka marka sameynay mooji inaad horfadhi TV ku xiran tahay warbaahinta barnaamij ayaa jiray aanu ka sameynay arrimaha shidaalka inkastoo aanan si khaasa aanan uga sameynin ood weyne laakiin way ku jirtaa ood weyne dokumentiyo aanu helay ayaanu ku ogaanay arrinta shidaalku waa mawduuc u baahan in mar kaliya barnaamijka qabano mawduuca yani dokumentiyo aan gacanta ku dhignay waxay muujinayaan waxyaalaha aad halis u ah waxaa la samaystay wax la yiraahdo oil project ciidan gaara baa loo samaystay 25 milyan oo lacag lagu qaatay oo ciidanka kaliya 400,000 oo joogtaana bishii waa lagu qaataa ciidankaasi oo dad gaara ka faa'iideysta shirkaddan waxaana bixisay lacagtan Channel la yiraahdo aad ogtahay inay magaalada Oodweyne duleedkeeda ay sheegtay inay shidaalka qodanayso dawladda Soomaaliyeed way diiday shirkadaasi oo warqad bay u dirtay warqadan waa haynaa oo ay dawladda Soomaaliyeed ku joojisay leedahay kama sameeyay kartaa halka ficilo baaritaan shidaal oo sharci darro weeye laakiin wala iska dhiga maray mana jirin cimaartay usday ama yani shirkadda waa shirkad qowleysataa waxa iska leh niman Ingiriis ah boqolkiiba inteeda badan leh laakiin Turkiba ayaguna wax ku leh waxa ku jiray ninkii Sahawaawi loo jiray xisbigan conservative ee dalka Britain maartiha oo ahaa ayaa ku jiray shaqada laga eri jiray waxa looga eriyay kamid ahayd
waxay lu kula yihiin dadka la dilayay lu kula haayeen ciidankan yaa yaqaan ciidankan oo la yiraahdo unit protection cid taqaan male يعني waxaas lagu qiyaasay dhowr boqol oo askari inay yihiin oo hubaysan oo hub casriga wata oo qof kasta dili kara waxaan ilaamsay dadkii xitaa laascaanood ku dilayay inay qayb ka ahaayeen waana run arrimaha laascaanood way ku jireen way ka mid tahay hol qorshayaashooda way ka mid ahayd arrintaas barnaamijkaas waa kusoo diri doonaa insha allah hadda waan hayaa waan kusoo dhiima garee doonaa markaasaad fahmi doontaa waxyaala badan oo xog badan aad u wada haysaa kuwo kalena halkaas waad ogaa doontaa waad mahadsan tahay وانا كسر